سير لصومرين أمو صومر هاديو جريس حل رباني أما يسار حنون إيو سروع إلى كراجين أمدنا صح إيو خلد كلا ساري وايين مسلو غمدبكيو سنجيغا إيو مقاعو صومالي بان أهي أمدها لا سيمانا سلكا ugu shisheeye nafdi ku simaniyo saaca koonfureedo saaciido taaliyo sinta bari galbeedkiyo sabarada waqooyiga ummada ku siman ee siqiiriyo kabiir bari kala sooci maayo waa ii wada sokeeyo Soomaali baan ahay aan seeraari karino انت ثورة عيقي يصور كيغا أراكتيون انت صحي تغيني هوري إلى سعوتيون انت سود كوغاري سوغان تمغشيون انت صوف كراعدي باديها كوسوغان إيون انت سرع بيرتي وحسو سار كبرطبا واجب جيزة يا غانو ولا يا aqoon isweydaarsi hal maalin oo ay ka soo qayb galeen ilaa iyo 100 qof oo isugu jira aqoon-yahano Soomaaliyeed oo ku nool dalka Netherland iyo waliba kuwa ka yimid wadamada kale ee Yurub iyo Ameerika ayaa waxa uu ka dhacay magaalada The Hague ee dalka Netherland kaas oo looga doodayay sidii Soomaalidu ay ugu xoroobi lahaayeen cabsida dhinac walba Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka mid ahaa dadkii lagu casuumay shirkaasi ayaa goobta ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay isagoo si faahfaahsan ugu hadlay taariikhdii fiicneed ee dalka Soomaaliya uu soo maray iyo raggii u soo halgamay xorriyadda dalka Soomaaliya ee sida hadda loogu baahan yahay in la helo muwaadiniin ka madax bannaan xumaanta iyo qabyaaladda islaamnimadii markaas waxa weeye ma adigu sidaad u haysatid baa oo adiga noqday bedelkii kitaabka mise waxa weeye inaynu inaku intaynu wada fadhiisano isku aqal celino iyadoo la xasuusan yahay maalinta Ilaahay la hor joogo inaan cidnaba wakiil cid ka ahayn oo adigu mas'uuliyad qof walba hay saaran tahay marka waxa imanaysa maxkamadihii baa imanaya qolooyinkan hay'aho ee butida waxaan idhaahdaa gargoyle af ingiriiska butida lagu yiraahdo waa kuwiin laayay min 19 ilaa maxaakiimtu ay imanayeen 2006 waa butida xilligii butida ay ahayd dad cunki iyo ku diinna may sheeganayn dawladnimana may sheeganayn waxa weeye aniga haye ama soo hoos galo hayla hadle hadii kala gamban qaasinay markaas ay soo xidheen sida siyaad barre oran lahaa de waxa weeye dawladnimadii waan xidhan oo aniga igama hadli kartay dad biyaha sida dawladnimada qadasa iyo kuna shaad reeraad ayay soo xidheen laakiin se reer hay adeegaya ma jiraan way haday reeraho dhani siday sheegayaan iswada ogol yihiin dee dhulka oo dhanba nabad baa ka jiri lahayd qabqable muu jireena waa la wada tashan lahaa sidii qarannimada waxaan jirtay wadaadadii baa yimiday 2006 anu xamar baan tagay laba jeer baan u tagay in badanna waan wada doornay markan xamar tagay ayaa nin Ingiriis oo isnaqaano oo safaaradda Ingiriiska jooga magaalada Nairobi ayaa maqlay in magaalada joogan xamar u socdo waa bishii June markaas qolahna saxaabna hayna isaga ismaana aragay ku Cabdi Maxamed xamar ka doonaya uu waalan yahay wala qalib ilaa qoladiisu ma joogtay markan soo noqday waan qoladii u faray wax ka dhaha xamar aniga xukumo ku dheh ka xamar aniga xukumo waan soo noqday waana nabad qaba gaalada horta waxa la geliyay iyo kuna hay goosteen iyo ko caajisa gaalada waxaan leeyahay dadkii ajnabiga ya Soomaali walba ra'yigiisa iyo ra'yigeegu inuu yahay qabiilkiisa iyo qabiiladeeda waxa la tirtirayaa dadnimadaadu waa la tirtirayaa diintaadii ayaa la tirtirayaa waxba ma garan kartid haddii aad reerkii umbaad mathilaysaa markaa ma hadli kartid ama wax baro ama ha baranin qof walba waxa marka la yiraahdo asadow reerkaagu waa reer farax qalooc soo maaha ya
بس هذيك السؤال كم ويدين إنه رأي قاسي خبان واعي yeah precisely crazyism فقلبك خيال ولا بدأ تقار marka wadaadadii markii meesha ugu tagay dhowr jeer ayaan la wada fadhiistay xaruntooda markuu madaxda sheeganaya marna ilaa 40 konton 60 iyagoo wada fadhiya kuwii la lahaa shuurada la lahaa shirkan anigu oran jiray shuurada ma oran jiray shirka iyo shuurada waa isku mid midna af Soomaali midna af Carabi waay diintuna afkaaga inaad ku barato waa lagu ogoliyaa doodihiina kala dhex maray وأدو فربضنايا مد waxay ahayd sidee loola dhaqmaa qoladan bay dhaba joogta ya miyaa la dagaalamaa mise waa la xaajooda ta kale waxay ahayd adduunyada way nagu xeeran waraaq baan u qoray maalin dhow soo bixi doonta oon ku leeyahay timacada anigoo ka duulaya hareeraha ragay naga xiga hela libtoodii hareeraha laga fadhiyaa talaabo ma qaadan kartid haddaanad xarfadayn si goolka loo dhaliyo kubadda soo ma taqaan waanad xarfadaysaa soo ma yaa laakiin haddaad soo mutxuun dalkaas baa lagu soo fadhiisana qoortu baa laga goyn maca kubadda markaa hays mutxina baan ku yiri waan xarfaday timaada adduunyada la xaajooda dad wax maqlay way jireen intooda badani maba fahamsanaynba حتى كوب سرية إيه ما أنت متحوينه مركي دم واحد سلوجان الكتاب كان سلوجان إن عاد هي كتاب أدور فني يقولون كذا لا شوف بدو ما إن عاد إنك على دحمة رأي أي بليجا وحنا ما نقول مقالة دي مكاه يا يلقى قبلها كاي وأجا سكول كجابر ما تحلين جرينا قول ما لقوا حرس سكول كجابر أتاني ريت ويفرق بدنا عندك كتاب كوب فني todo waxay soo gaadhay waa heedaha diinta iyo qarannimadu way isnaasnuujin karaan way isku kobcin karaan ya sida la isku naasnuujinayaan waxay ahaataa adigu ha iska dhaxatin dawladnimada adiguna ha iska dhaxatin diinta ya ummadoo dhan ka dhaxarag ya marka waxa weeye haddii aan doonano ummadeenu inay ku dhaqanto shakhsiyan inay ku dhaqanto diintii oo iyagu markaa mas'uuliyadii qaadaan hadii kale aan dambigii qaadin waqti marka waxa weeyaan meel walba waa in iskuul laga furo diinta lagu dhigto caruurta si wanaagsan meel walbana waa in laga furaa iskuul farsamooyinka kale lagu barto tilmaamtan soo sii waxa weeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo nabiga kaleey salaatu wa salaam midnaba mu oran kolkad guri dhisatid albaabkiisa xagga u jeedo ma oran qarannimaduna waa guri hadhisan sidoo waay marka albaabku inuu xaggan ahaado iyo inuu dolocda ahaado iyo inta jar la fuulo halka laga boodo adiga ayay ku taala waxay la ilma saxno ku sii ummadii marka gurigeena sidoo u dhisanano innaka waa inaynu ku tashana markaas caruurta lagu fajaaso marka kuwan maanta dhashay ama kuwa 10 jirkii markay 20 jir iyo 30 jiraan waa dad diintii aqoon u leh iyaka ayaa isxakameynay adigu ma baahanaysid marka inaad karbaash la dul joogtid uma baahanaysid waxaan ku yiri sida loo dhisayaa qarannimo Soomaaliyeed iyo dad islaamnimo ku dhaqman laftooda loo helayo waa sida tan ko waa inaynu sameynaa laba xoog waa inaynu dhisnaa Soomaaliyeed xoog han u bixiyay moral authority xoogii aqeedada oon siyaasadii ku jirin isaga iyo xoogii siyaasadda dawladda ahaa xooga aqeedadu markaasi malaha iyo ku qoryama sitaan dawlad ma noqon karaan haddaad halkaa gashid qaybta haddaad gashid dawlad ma geli kartid waxa weeyaan inay dadka had iyo jeer u aqal celiyaan hadday dawladdu saxsan tahay inay raahdo dawladdu saasay ku saxsan tahay hadday dawladdu dadka jarka ka tuurasana waar jarka inaga tuurasaa maxaynu yeelnaa dadka lagu yiraahdo oo noqoto haan lagu kaydiyo xikmad islaamnimo iyo xikmad Soomaalinimo lagu kaydiyo oo iyagu markaa u hadlaan dadka laakiin siyaasad ayna iyagu gali karin
dabadeedna laga dhiso xarumo gobol kastaba xarumihii caqiidada la dhaho xarumadaana waxa ka madax noqonayo ku jiraya guddiyo la soo xulay la iska hubiyay oo ah dad diinta si wanaagsan u bartay si wanaagsan ugu dhaqmaya maqashida aan ahayn wax ku doonta aan ahayn iyo dad dhaqanka Soomaaliyeed si wanaagsan u yaqaan labadba oo isbarbar fadhiya inay ka taliyaan oo dadka wacyi geliyaan sanad kastana 3 bilood bana mar report ay soo saaraan hay kaloo noqdaan dadka haddii dadku isqabsadaan biyo iyo baad iyo haddii la isku qabsado dadka u kala caqli celiya oo kala wada dadka halkii markaa wixii biyo yar haddii la isku laayahay noqon lahayd laba reer baa islaayay in halkaa lagu xaliyo dawladii aanaba soo dhexgelin walaaltinimo iyo islaamnimo lagu xaliyo iyaguna hay ka madax ahaadaan sida dhaqanka iyo islaamnimada carruurta loo barayo hay leeyihiin kayd maala oo ka madax bannaan dawladda ya oo iyaga carruurta lagu ilaalinayo ilaan waa bini aadam waa inay noolaadaan dadka meesha ku jiraay wax ku filan la siiyo sayna lufluf u raadin oo af mishaar u noqon taasi waa taas waxaan qabaa markaas haddii arrintaasi hay jiri lahayd markuu jaahwareerku wareem imanayay waxaa dadku u soo jeedsan lahayn war dadkii caqiidadu maxay yidhaahdeen baa la odhan lahaa meel kalsooni keentay oo khibrad keentay oo la soo yaqaanay inayna iyagu wax iskoodu doonayn ayay dadku xaggaasay jihadaas u jeedsan lahayn markaa dadkaa lagu odhan lahaa dawladdii way naga dhimanaysaa intaynu tii kala abuurano yaan la islayn dadkaa la kala dhex geli lahaa taasi waa tii caqiidada tii dawladnimadana waxa weeye haddiise la dhaho 4.5 laba arrimood ayay jebinaysaa laba arrimood ayay jebinaysaa oo runtii halbowle ah kow waxa weeyaan waxba ma wadaagi karno oo isaguna ima malithili karo anna ma mathili karo marka isagu waxa weeyaan faras aniguna dameer baana haddaanu wax iska dhalnana baqal baanu dhalanaa baqashuna ma tafiirmaso marka waa la dabar go'aya waay literal Soomaali garan marka waxa weeye war ma abtirsiinta maskaxda keenta mise ilaahay baa keena ko marka horta walaaltinimadii rag iyo dumarba way baaba'aysaa haddaan markaa annagoo gobol ku wada nool oo magaalo ku wada nool oo qayb magaalada neighborhood kaga nool oo jaara haddaanu ka wada tashan weyno iskuuladii meesha ku yaalay maamulkii meesha ku yaalay la yiraahdo adna xaafadiina u tag adna xaafadaada u tag ya waxaan aabaha iyo hooyaday ismay guursadeen hadday taasi jiri lahayd ismay guursadeen aniguna ma jiri lahayn marka waxaan uga doon lahay waxa weeye qof walba waa selfish waaye alxamdulillah inaan dhashay alxamdulillah inaan jiray ilaahay aabaha iyo hooyaday baa ku mahadnaq laakiin hadday 4.5 lagu xukumi lahaa waagaasi maan jireen adiguna ma jirteen Soomaali jiri lahaa ma jiro marka genetically wayna masaxasa ya ummadahaana wayna masaxasa ko takale masaxasa marka waxa weeye islaamnimadii way masaxasa illa dadkii muslimkii waxa la yiri walaalaatiin Soomaa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتحاكموا مؤرا لتعارفوا بعد سمع هنا تكون قرتان تي ابترسين عيب ما او اباهين انا وانو ابترين هويدينا وانو ابترين لكن سو كلا يحن ماي marka waxay kala baabinaysaa waxa weeyaan walaaltinimadii islaamnimadu ku dhisnayd ayay baabinaysaa marka inaynu raadino sida dawladnimo iyo islaamnimo la isku wadaya aniga sida ila tahay waan inaan khaldanahay waa laga yaabaa waxaan jeclaan inay cid kale soo bandhigto sida la isku wadayo in sida loo kala saaraya la isku ruguna wadaya inay kala tahay dadka moral authority-ga inaynu urursano oo gobol kastaba ka imanaya
oo iyagu mas'uuliyadoodu tahay sidii diinta loo bari lahaa sidii dadka xaq loogu kala siin lahaa aan siyaasadna gali karin waxaan qabaa markaasi 20 sanadood dabadeed inay dhalinyar ku wada barbaartay rag iyo dumarba aqoon diimeed oo teena ka weyn leh oo qof walba mas'uuliyadiisii iyo mas'uuliyadeedii qaadan karo inay soo baxayaan dawlad wax ku khasbasa ama shabaab wax ku khasbayana taa ma keeni karo ugu dambeyn shirkan maanta ka dhacay Netherland ayaa waxa uu muujinayaa bilowga in ururada Soomaalida ee dalkan ay yeeshaan midnimo iyo in ay si wada jir ah u wada shaqeeyaan iyadoo saddexdan urur ay ahaayeen ururadii Danxaaq ama Badahay ku sameeyay sanad guuradii kontonaad ee 1 Luulyo ee sanadkan waxayna ugu baaqayaan dhammaan ururada kale ee Soomaalida ay ka jira guud ahaan Yurub inay yeeshaan isku duubni taas oo ay u arkaan mid